dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay Soomaaliya u soo dirayso ilaa 500 oo askari oo dheeraad ah oo ka tirsan ciidamada gaarka ah taas oo qayb ka ah taageerada military ee uu Turkigu siiyo Soomaaliya. ciidankan ayaa ah cutub cusub oo ka kooban ilaa 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee commandoska iyo 200 xubnood oo shaqaale taageeraya ah kuwaas oo diiradda saari doona la dagaalanka argagixisada iyo howlgallada kale ee diyaaradaha droniska. ciidamadan cusub ee Turkiga ayaa qayb ka ah qorshe ballaaran oo Turkigu ku doonayo inuu Soomaaliya ugu soo diro ilaa 2500 oo askari kuwaas oo ay ku jiraan 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah oo kuwaas oo hore loo keenay magaalada Muqdisho bishii Abriil ee sanadkan. baarlamaanka dalka Turkiga ayaa hore u ansixiyay howlgalkan laga fulinayo Soomaaliya. ciidamada Turkiga ee haatan la keenayo Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli xaaladda Soomaaliya ay qatar wajahayso isla markaana taageerada Mareykanka iyo wadamada kale ay Soomaaliya sii jireen uu hoos u dhac ka yimid iyadoo Mareykanku uu dhimay kaalmada gargaarka dibadda taas oo la xiriirta siyaasadiisa cusub. waxaana dhawaan Mareykanku ay ka jireen mushaarkii ay sii jireen ciidamada commandoska ee danab ee Soomaaliya. sidoo kale midowga Afrika ayaa ka digay in guulaha amni ee la gaaray ay halis ugu jiraan in la lumiyo haddii aan si degdeg ah loo qaadin caqabadaha miisaaniyadeed ee saaran Soomaaliya. khubaro dhinaca amniga ayaa sheegaya ciidamo dheeraad ah oo Turkiga uu keeno Soomaaliya ay suurtagal ka dhigi karaan in xaaladda dagaalka la dejiyo isla markaana ay yareeyaan hubanti la'aanta ka jirta Soomaaliya. imaantika ciidamadan cusub ee Turkiga ayaa ah mid ku soo beegmaya waqti muhiim ah xilli ciidamada AMISOM si weyn loo dhimayo isla markaana la jarayo miisaaniyadda iyadoo sidoo kale ay Soomaaliya wajahayso xaalad markaasi kala guur ah. Turkiga ayaa hore u sameeyay sidaan oo kale intii uu socday dagaalkii Itoobiya waxa ay markaasi si weyn u taageereen Itoobiya dagaalkii ay kula jirtay Tigray sidoo kale dalalka Suudaan iyo Liibiya. sidaa daraadeed dowladda Turkiga talaabadan ay ku taageerayso dowladda Soomaaliya ayaa ah markaasi mid gacan weyn ka geysan karta sidii gacanta loogu dhigi lahaa amniga dalka. markabka saaminta shidaalka ee Turkiga ayaa isna haatan baaraya badda Soomaaliya si loo ogaado suurtagalnimada keed shidaal. Turkiga ayaa waxa uu yahay saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya ay isku haleynayso iyadoo dalka Mareykanka oo inta badan bixin jiray mushaarka ciidamada iyo sidoo kale tababaro dheeraad ah uu haatan u muuqdo mid markaasi yareynaya heshiisyadii iyo taageeradii uu sii jiray Soomaaliya.